howlgalkan qorsheysan ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ujeedkiisu ahaa baacsiga araadiga maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab. howlgalka ayaa waxa ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee Danab ay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo Urunji oo hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo maxkamad beenaad ay u ahayd maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab isla markaana shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta xoolahooda ay ku qaadan jireen. howlgalka ayaa waxaa fuliyay ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka ee Danab. intii howlgalka ay ku guda jireen ciidamada waxay ku dileen laba horjooge oo Al-Shabaab u qaabilsanaa waxa loo yaqaano sakawaadka ama xoolaha baadda ah ay ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale howlgalkaasi waxaa lagu dilay horjoogihii u qaabilsanaa maxkamadda deegaankaasi Urunji oo ahaa horjooge markaasi baneystay dhaca iyo boobka hantida ummadda Soomaaliyeed. labada horjooge ee ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee Danab howlgalka ay ku dileen ayaa waxaa weelinayay 3 maleeshiyaad oo la socday kuwa oo isku dayay inay dagaalamaan, hase yeeshee ciidamada kumaandooska xoogga dalka ayaa goobtii ku toogtay. horjoogayaasha ciidamadu ay dileen ayaa waxaa lagu kala magacaabaa horjooge Cabdullaahi Dhagool oo qaabilsanaa waxa ay ugu yeeraan Al-Shabaab sakawaadka ama baadda xoolaha shacabka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale horjoogihii maxkamadda deegaankaasi qaabilsanaa ee lagu magacaabayay Sheekh Maxamed. taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka ee Danab gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u sheegay in howlgalka intii ciidamada ay ku guda jireen inay soo badbaadiyeen dad badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo maxbuus ahaan ay u haysteen Al-Shabaab. waxaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay markaasi aysan tagin meelaha ay maxkamad beenaadyada ay ka sameystaan Al-Shabaab. ciidamada kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kordhiyay howlgallada ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwa ay ku sameynayaan gobollada dalka, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada Jubbooyinka. maxamed muuse maxamed, idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose.